qorshe boy ayaa caawana waa kan oo garaacaya daansadaha iminka waa uu soconaya taleefankiisa ayuu aad ugu mashquulaya fanaankan inaba caadi ma ahan haye waxa uu diyaarinayaa heesa aan caadi ahayn qusulkiisa ayaaba aad ku soo jiidanaya waa boqorka isteelka magaalada Muqdisho markan waa kan waa uu taagan yahay haye jeegadiisa caadi ma ahan daawada like sar oo saaxiibada u sheer garay waad arkaysaa sida uu u garaacaya daansadaha caadi ma ahan kani waa mucjiso laamiga ayuu soo goynaya lug ayuu ku imaanaya xafiiska durdurmeediya markan waa kan waa uu soconaya fanaankii lugta ayuu ku soconaya wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho taleefanka ayuu ku hadlaya waad arkaysaan caadi ma ahan haye waa ka fanaanka qorshe boy waa uu nawaalaya waa fanaan casri ah waa fanaan cusub waa fanaankii ugu shinaayay abi soomara durdurmeediya wuxuuna sheegay inuu leeyahay fanaankan talent mucjiso leh isla markaana aan waxba laga qaban karin markan waa kan waa ay soconaysaa caawa asaga ayaa naga waalaya caadi ma ahan haye markan waa kan haye qorshe boy waa sheekaysi dheer ayuu ku sameynaya dhanka iyo taleefanka caadi ma ahan haye markan waa uu soconaya fanaanka haye markan waa kan waa uu soconaya maanta asaga ayay u shidatay magaalada Muqdisho mooto ayuu raacaya waad arkaysaan caadi ma ahan waa uu ka soo degaya fanaanka haye waa kan waa uu socda markan haye wadada Makka al-Mukarrama maanta asaga ayaa ku damaashaadaya maanta asaga ayay u shidantaa halkan oo inaba caadi ma ahan fanaankan lagu magacaabo qorshe boy asaga ayaaba naga waalaya markan waa kan waa uu soconaya haye dhar ayuu isku cabiraya fanaanka maanta wuxuu sameeynaya mucjiso aan caadi ahayn wuxuu sameeynaya talentiga adduunka waad arkaysaan dharkii firaashka ayuu soo babaxsanaya asagoo doonaya inuu isku cabiro markan waa kan fanaanka caadi ma ahan shacabkiisa ayuu waqti la qaadanaya shacabkiisa ayuu la sheekaysanaya haye markan waa uu fikiraya fanaanka qorshe boy caadi ma ahan daawada maxaad ka aaminsantahay fanaankan adiga daawanayo maxaad ku dhiiringelin lahayd fikirka adduunka ayuu galaya waad u jeedaan haye waa uu fikiraya fanaankan caadi ma ahan magaalada Muqdisho maanta asaga ayaa si weyn u gilgelayo waa fanaan talentigiisa banaanka yaal foodiisa aad arkaysaan timaha waa mid aad iyo aad waalu ah fanaankan waa fanaan aan waxba laga qaban karayn waad arkaysaan aad iyo aad ayuu ugu faraxsan yahay in uu ka mid noqdo durdurmeediya asaga oo isla markaana doonayo in uu halkan ku soo bandhiga talentiyo mucjiso leh waa ka fanaankii wali waa uu taagan yahay caadi ma ahan markan waa uu soconaya haye shacabkiisa ayuu la hadlayaa fanaanka waad arkaysaan haye waa kan markan goob kale ayuu yimaaday fanaanka haye waad u jeedaan haye waxa uu la hadlayaa shacabkiisa asagoo ah fanaanka kaliya ee shacabkiisa waqtiga ugu qaata waad arkaysaan qorshe boy caadi ma ahan daawade like sar oo sheer garay maxaad leedahay fanaankan ma ku qurxan yahay isteelkan ma ku wanaagsan yahay inuu fanka ku soo biro fanaankan fanka ma u baahan yahay intaasi in ka badan ba aragtidaadna la wadaag ee qaybtoos commentiga noogu reeb saaxiibadaada u sheer garay waa uu soconaya fanaanka waad u jeedaan caadi ma ahan fanaan qorshe boy ayaa caawanaga waalaya haddii aad daawanayso nasiib ayaa leedahay waad u jeedaan caadi ma ahan inaba asxaabtoo ila joogo fanaanka socodka ku yimid xafiiska durdurmeediya ahna fanaanka ugu isteelka qurxon haddii aad daawanayso muuqaalkan like saar saaxiibadaada u sheer garay si dad badan uu u gaaro soo dhawow fanaan ndhowahay aad baan ugu mahadsantahay waad dhididaysaa waad nawaalaysaa horta wallaahi wartaayo oo dhididaya waxaan ka soo lugayay qadaan soo tuurtay degmeelaha ka degman soo lugayay waagar laamidaan soo dabeeyay waagar waa soo go'ay ugu dambeyn alxamdulillah waa xafiiska durdurmeediya aad baad ugu mahadsantiin inaad igu soo dhaweysaan xafiiska igu martiqaadaan aad baan salaamayaa daawadayaasha iyo fanaska ku xidhan durdurmeediya aad baan salaamayaa waxaad ilaahay soo dhawaada marka daansada aad laamiga ku dhax tumaysa maxaa ku keentay wallaahi horta waqtiga uu saamixi waayay inaan studio galo waxyaabo badan oo maarata ii suurtagal waayay awgeed ayaan marka igu kalifeenan daasada qaato aan fadhiisto wadooyinka aan ciyaal xamar oo dhan maxay ahaatay aan ku maaweeliyo codkayga iyo daasadaha soo dhigan anaga xanuusuusi karta hasi
horta wallaahi heeso badan waxaa jira anigu aan sameeyey heeso badan aan bedelay baa jira dadku xitaa heesa aan maandhowd qaaday oo iga codsadeen baa jira oo igu yiraahdeen soo dhammaystiran waxay ahayd anoo wareersan aad u daalan hees waxaa jiray maandhowd aan soo bandhigay oo balse haaf ahayd fanaskayga iga dalbaday igu yidhi soo dhammaystiran wallaahi horta fanaskaygu aad bay u mahadsanyihiin waxyaabo badan iga soo codsadeen baa jira insha allah dalabkoodana wuu tixgelin doonaa fanaskaygu iyo fanaska ku xidhan durdur meediaba wax kasta ay raali ka yihiin ay u baahan yihiin insha allah tacaala waxaan xooga u saari doonaa baragjarkaan saari doonaa inaan usoo bandhigo heesta igu yidhahdeen maan dhow soo dhammaystir ayaan rabaa inaan dhammaystiro insha allah inkastoo ay rabadaan tahay base insha allah tacaala waan iskaga qaadanaya waa fanaskayga muusig la'aana muusig la'aan caadi waa iska wax yaro waxa weeye waa liwaliya garatay dhacwo anoo wareersan oo aad u daalan anoo wareersan oo aad u daalan qofka u yeedhan garabsadaba waa loo igu sheegaa dadow maad i maqashaan daran isiisaan waliba i dhugataan allow abaaweyn wax kasta arkaya ninkan la diiday ma uu miciintid waa sidaa waxyaabo badan waxaa jira diyaarsan caadi ma ahan waa arkaysaa fanaanka aad u kala kacsan yahay ramadaanna waa lagu jiraa isteelkan maxaa kugu dhali horta wallaahi aniga sidayda haddaan ka hadlo isteelkan waa waxaan anigu faamilkayga hiddaan u leenahay xale waxaa isdhaa boqorka isteelka adaan noqonaysa horta muqdisho dhan laakiin adiga waaliya u labisan tahay jeega kala kacsanaa kuu jaran horta aniga gebigaygaba kala kacsan kala gacan lagu soo sheegayba aniga gebigaygaba ma garata isteelkan lagu sheegayna aniga gurigayga lagu sameeyaa ma garatay kadib isteel ku soo degay gurigayga weeyaan aniga hal dad unbaa aniga iga isteel qurux badan dadkaasina waa ciyaal xamar aad iyo aad baad mahadsantiin aad iyo aad baan u salaamayaa horta waxaan doonayaa arrin muhiimaan ka hadlo oo ciyaal xamar ku saabsan horta wallaahi anigu ciyaal Hargeysa hadaan nahay waxaa jiray hadal aniga isaanteeda in badan horta liin waa ka dhargay guriga nooga baxdaa hadal in badan iga soo noqnoqday ciyaal xamar waa san ciyaal xamar waa goob ciyaal xamar ma garatay horta wallaahi runta hadaan ka hadlo ciyaal xamar aan ka hadlo tooda ciyaal xamar waa goob been maaha waa nasab ma garatay gebigoodaba ciyaal xamar waa rag adag ma garatay oday weyn waxaad arkaysaa ku oranaya ciyaal xamar baana ma garatay anna maxaana ciyaal xamar baa tahay ku leeyahay ma garatay horta wallaahi aad baad mahadsantiin dhammaantiin aad bay idin salaamayaa insha Allah maalin dhow waxaan sameynayaa barnaamij ciyaal xamar oo dhan gebigoodaba mid kasta intaan gurigooda ku boqoda aan soo salaam ciyaal xamar baa taa atoosh waa ka bilaabaya ciyaal xamar abto waa u jeeda fanaanka talent gooni uu leeyahay qorshe boy hees aad adiga khaas u leedahay ma jirta wallaahi horta heesahan iyo waxa lagu sheegayba qaraami hadday noqoto fanka dhowr buu ka kooban yahay ma garatay qaraami hadday noqoto raab hadday noqoto xitaa freestyle kan ay gooni yahay ma garatay heesahan qaaday waxa kamid ah diyaarimaan qaaday waan soo baxay insha Allah laakiin freestyle bay ka dhigayaaba waxaan idhi ma taqaanaa horta waryaa kani waa fani qorshe ma taqaan laabti ka qani ma ogaateen inaan wata lambagini maxad oo dhan de madicuni halaygu soo baxo kali fanka kuwa haystaba waan ka didin raabki iyo heestana waan kala dili qorshe ma garba inuu ka geeyo duli guri hadan ku imaadaba iska kay buri awalba waxaad ahayd bilaa guri asxaabta qorshe boy waa arkaysaan caadi ma ahan adiga aragta ahaan waxaad ka aaminsan tahay magaca sida uu u shidan yahay commentiga noogu sheeg waa saaxiibin Atooshare cameraman gaduudo bye bye ogeysiis muhiim ah cudurka baabasiirka waa cudur halis ah oo keeni kara in aad weyso dareemaha qaar ka mid ah jirkaaga waxa uu ku bilowdaa caloosha oo fariisata kadibna dibiryo joogto ah iyo in aad muddo ka maqnaato suuliga taas oo keeni karta in ay adkaato saxarada si adagna ay ku soo marto dhanka hoose kadibna halkaasi uu ku sameysmo nabar keeni kara dhiig waad iska daaweyn kartaa adigoo la tashanayo dhakhtar aad ugu xeel dheer kaasi oo ka howlgala isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Siiriyaan asagoo isticmaalaya daawo iyo qalab casri ah oo loogu talagalay baabasiirka isbitaalka wuxuu ku yaalaa inta u dhaxaysa Tarabuunka iyo Digfeer ama kala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda mahadsanid aadan 19 ice cream xarunta ugu tayada wax soo saarka fiican geeska Afrika ice creamka aadan 19 waxaad ka helaysaa wadamada geeska Afrika xarumaha aadan 19 ice cream waa goobo aad loo qurxiyay isla markaana ku soo jiidanaya
mar waliba xusuustaada ice creamka ku haya aadan 19 marun booqo xarumahooda kala duwan ee geeska Afrika